Assalaamu calaykum dhammaan walaalaha ku xiran kanaalkeena. Maanta waxaynu ka hadli doonaa mowduuc dhiirigelin ah. Ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta. Muuqaalkan waxaan kuugu soo gudbinaynaa xikmado dhiirigelin ah oo waxtarna leh. Caruurta qulubtoodu waa nadiif, laakiin dharkoodu ayaa wasakh ah. Dadka waaweyn dharkooda ayaa nadiif ah, laakiin qalbiyadoodu waa wasakh. Kuwa Allah subxaanahu wa tacaala badbaadiyay mooye. Shimbir geed dul fadhiya marnaba kama cabsato in laantu ay saaran tahay la jabto, sababtoo ah kalsoonideedu ma ahan laanta, balse waa baalasheeda. Had iyo jeer ku kalsoonow naftaada. Qorax dhaca halkan waxay qorax u soo bax u tahay dhinac kale oo adduunyadu ka mid ah. Xaquusan sababtoo ah wax u muuqda dhammaad ayaa xaqiiqadii ah bilow cusub. Muhiim ma ahan inaad ka xanaaqdo waxa dhabarkaaga laga yiri, waayo hortaada lagama oran karo. Ha ku dadaalin inaad dhisato guri weyn oo aad ku noolaato, laakiin ku dadaal inaad dhisato guri aad ku noolaato oo xasiloon ay ka dhex iftiimayso akhlaaq wanaagsan iyo alla ka cabsi. Awood uma lihid inaad beddesho muuqaalkaaga si aad u noqoto kan dadka ugu quruxda badan, laakiin waxaad awood u leedahay inaad beddesho dhaqankaaga si aad u noqoto kan dadka ugu akhlaaqda wanaagsan. Noloshu waxay macno badan yeelataa markii aad garowsato xaqiiqda fudud ee ah inaad fursad isku mid ah aysan laba jeer ku soo mareyn. Ka faa'iideyso fursad kasta. Tartanka u dhaxeeya libaax iyo dayro. Marar badan waxaa guuleystay dayrada, sababtoo ah libaaxu wuxuu u ordayay oo keliya cunto, dayraduna waxay u ordaysay nolol. Xasuuso ujeedo hadaf ayaa aad ugu muhiimsan baahida. Ha noqon qof cunto keliya u orda. Ha isku mashquulin, hana ka fikirin gafkii shalayto, waayo beri waa fursad kale aad ku sixi kartid intii shalay qabyada ka ahayd. Salaamullaahi calaykum.